Assalamu alaikum. Welcome to Afla Academy. Today, inshallah, waxaan rabnaa inaan barno home appliance. Sidaad ka aragtiin ba casharkan ciwaankiisii maanta wuxuu ku saabsan yahay home appliance. Home appliance maxaa waaye? Waxaan rabnaa inaan ogaano. Then sidoo kale automation waxaan qoran magacyadooda ayaa noo qoran. Mid kasta inshallah waan dul istaagi doonaa oo waan arki doonaa doonayda. Marka, please come again. So, home appliance waxaa yiraahdaa qalabka lagu isticmaalo guriga ayaa waxa la yiraahdaa home appliance. Isku jiraan kuwa loo isticmaalo koronto ama ha noqoto kuwa caadiga loo isticmaalo ayaa waxa la isku yiraahdaa home appliance. Sidoo kale waxaan dhihi karnaa home equipments ayadana isticmaali karnaa home equipments. Sidoo kale waan isticmaali karnaa. So equipments waxa weeye waa qalab. Sidoo kale appliance ayadana waa qalab. qalabka loo isticmaalo guriga ayaa la yiraahdaa home appliance. Marka then here we have lesson 1 home appliance lesson 1 ayaan ka soo bilaabayna inshallah. Then waxaan ku sii socon doonaa lesson 2 lesson 3 lesson 4 up to you understand better inshallah. Marka as you see on the board here we have a stove. This one we say stove, blender, electric kettle, dishwasher, freezer, lamp, refrigerator, electric fan, electric iron, and hair dryer. These are the 10 equipments that we are going to learn today. And then we say stove waxaa la yiraahdaa waa electric jiko. waa jikada caadiga la isticmaalo guriga lagu isticmaalo oo cuntada lagu karsado weeye. waa stove waa jiko caadiga ah laakiin jikadaani then waxaa la isticmaalaa sanadkan ku sheeba koronto ayaa la isticmaalaa. It has three doors just like this one. That's called stove. Stove waxaa weeye waa jiko. Number 2 waxaa noo qoran blender. Blender waxaa la yiraahdaa baxash biyaha lagu shiido ama mashiinta biyaha lagu shiido ayaa waxaa la yiraahdaa blender. Dad taqaanidba ama saa taqaanidba. That's called a blender. Then this machine is used for mixing and grinding for water sewage. Yeah. Then it has then it's called blender. It's called blender. Yes. Then blender, the reason why we are saying blender, and it has just like some fans here. Then we are making the show while the shit it grinds. That's called blender. Number 3, we have electric kettle. Electric kettle waxaa la yiraahdaa waa kirli ama jilin sax taqaanada. Jilin kan ama kirligan waxaa loo isticmaalaa koronto. That's called electric kettle. It's called electric kettle. That's called electric kettle. And that's like this. Labo laakiin waxaa la isticmaalaa koronto ayaa la isticmaalaa. That's called electric kettle. That's called electric kettle. That's called electric kettle. We say electric kettle waxaan dhahnay waa kirli waxaana lagu isticmaalaa koronto. And then here we have dishwashers ama dishwasher. Dish marka leena dish waxaa la yiraahdaa waa alaabta caadiga ama qalabka guriga loo isticmaalo alaabta saxanka qaatada wax dhan mindida dhamaanta waxaa la yiraahdaa dishes ama saxmaan baaqolada dhamaan dish ah weeyaan. laakiin marka dishwasher marka leena waa qalabka loo isticmaalo in alaabta lagu dhaqo ayaa waxaa la yiraahdaa dishwashers. Here we have number 5. We have something called freezer. Freezer waxaa la yiraahdaa waa qaboojiyaha caadiga. That's called freezer. Freezer waxaa weeye waa qabooji. Qaboojiyahan uu kala baxaa wuxuu kala baxaa ilaa ayo laba heer ayuu kala baxaa. Like one is this one. Then meesha waa la daboolay mararka qaar saasa. So this one is called a freezer. Yeah. This one is called a freezer. So meesha marka waxaa gashanay dhalooyinkii ama waxyaabaha aad rabtay inaad qaboojiso ayaad halkan gashanay. Alafu yani marka waxa ku sameeyay waa ku qaboojisan. That's called freezer. Freezer yirahdaa waa qaboojiye. Refrigerator sorry. And number 6 we have a lamp. Lamp waxa weeye waa faynus. Lamp waxay u kala baxaan labo. Mid waxaa la yiraahdaa lamp. Mid kale waxaa la yiraahdaa lamp. So lamp and lamp halka lamp dan
waxaa weeye waa cunug yar oo idida ayaa waxaa la yidhahdaa lamp. Lampadan ayadana waxaa weeye waa finance, waa waxyaabaha la shatuuyey. Like for example here we say waa finance waxaa noocyooyin kala duwan ayay ku imaataan inta badan. So this is a finance waa dhihi karnaa, ama we can other use mid kale oo isticmaali karnaa. We say like this, alafu meeshan we say like this. You see? Now this one we can also say what? Finance waa dhihi karnaa. You see this one? We say what? Finance waa dhihi karnaa. This is called we say lamp. So lamp waxaan leeyahay waa finance. So dhowr nooc ayay ku imaan kartaa. Mid waxaa weeye waa gas lamp, mid waxaa weeye waa electric lamp. Mid hadda aan ka hadlayno waa the both of them waa isticmaali karnaa. This one lighting, light caadiga waa fiilaa ku xiran. So alafu that's called light. And then this one is also a lamp. Also it's also produces light. Waxay soo saartaa aftiin ay soo saartaa. Labadooda waxay soo saaraan aftiin ay soo saaraan. So that's called a lamp. Number 7 we have a refrigerator. Refrigerator ayadana waxaa weeye waa nooc qaboojiya. Ayadana waa qaboojiya oo tan camal weeye. Ayada waxay kala leeyihiin jiif iyo joog ayay kala leeyihiin. So ayadana waxaa weeye waa qaboojiya ama refrigerator saa u taqaanaba. Number 8 waxaa noo qoran electric fan. ayadana waxaa noo qoran electric fan. Electric fan waxaa weeye waa maraxad waa maraxada korontada lagu xiriiriyo ayaa waxaa la yiraahdaa electric fan. And yes, some say it's also like this one. This one say electric fan. Along here we have king. Then it has something like this. It has something like this. This is called electric fan. This is electric fan. Along it overcomes space like this. Then it has this button. Along it rotates. Yeah, that's called electric fan. Waxaa weeye waa maraxad ama baashan la yiraahdo qaboojiya caadiga oo koronto ayadoo koronto ku xiriirsan la yiraahdaa electric fan waa maraxad. Number 9 waxaa noo qoran electric iron. Electric iron. Electric iron waxaa weeye waa feerada waa. Feerada way kala baxdaa. Waxay u kala baxaan charcoal iron and electric iron. Charcoal iron waa midan caadi dhuxusha lagu shubayo ama dhuxusha lagu isticmaalaa. Electric iron waxaa waaye koronto loo isticmaalaa. Just fiilaa ku xiriirsan alaabta socketkaad ku sii xiriirina halkaada ku fariisin. That's called electric. Yeah, it's electric. There's a electric. There's just like this. Alafu it has an up here, just like this. Alafu it has a hand here. Then it's just like this. That's called that's called yeah, this one is called an electric iron. Number 10 here. Number 10 we have something called hair dryer. Hair dryer waa qalabkan waxaa loo isticmaalaa in loo qaleeliyo timaha loo qaleeliyo. So inta badan waxaa isticmaalaa dumarka ayaa isticmaalo waa sidii bistoolada camal weeye, just like this. Alafu it has a hand, a pistol here. Then yani waxaa isticmaalaa dumarkaasi oo la qabta timaha loo buufiya. Marka that's called hair dryer. Timaha loo isticmaalaa in loo qaleeliyo ayaa loo isticmaalaa. That's called hair dryer. Hair waa timo, dryer ayadana waxaa weeye waa qaleelin waa. Isku qabo marka waxay noqotay hair dryer. Hair dryer waxaana waa machine loo isticmaalo timaha in lagu engejiyo ama loo qaleeliyo ayaa la yiraahdaa. So gudaha casharkeeni wuxuu ku saabsanaa home appliance and home equipment. Intaan ayaan ka aragnay maanta. Inshallah we go next lesson. We are going to talk about also still home equipment. Inshallah wish you to join this channel inshallah to get more videos like this. Otherwise, thank you very much.